السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق على عامر حسن كسو دواد مركلي مقال عصب waxaan daawada halkan kugu soo gudbin doonaa insha Allah farqiga u dhaxeeyo hilibka kalluunka ama malayga hilibkiisa iyo hilibka lo'da farqiga u dhaxeeyo. waxaan dareemayaa haddii Ilaahay yiraaho inaad ka faa'iideysan doontaan muuqaalkan wax badanna aad ka ogaan doontaan labadaas nooc ee hilibka ee bini'aadamku waxyaabaha aadka u cuno ka mid ah. midda kale maxay leeyihiin faa'iido caafimaad oo jirkeena u baahan yahay hilibka kalluunka iyo hilibka lo'da farqiga u dhaxeeya ayaan doonayaa inaan kuu soo gudbiyo insha Allahu tacaala. marka hore faa'iidada uu leeyahay intaan la gaarin hilibka, marka hore kalluunka waxa aad uga buuxo proteins sidaan ognahay, marka sidoo kale waxa ka buuxo vitamins iyo nafaqo jirkeena u baahan yahay. marka mar walba waxaa muhiim ah inuu qofka ogaado inuu u cunayo hilibka kalluunka in uu ka helo proteins iyo vitamins kuwaasoo jirkiisa aad u anfacayo. marka proteinskaas iyo vitaminskaas waxay hoos u dhigaan blood pressure markuu kacsan yahay ama cadaadiska dhiigga markuu kacsan yahay ayay waxay ku sameeyaan hoos u dhig oo low blood pressure ay leeyihiin. laakiin qofka markuu blood pressure-kiisa hoos u dhaco waa in laga ilaaliyaa maadaama iyagii markuu cuno ay hoos u sii dhigaan. marka laakiin waxaa lagu xalliyaa fish meat ama hilibka kalluunka in cadaadiska dhiigga oo sareeyay lagu yareeyo oo sidaas qofka loogu daweeyo. sidoo kale proteinskaas iyo vitaminskaas uu ka kooban yahay iyo nutrientskaas ama nafaqadaas uu ka kooban yahay hilibka kalluunka waxay yareysaa khatarta cudurka loo yaqaan heart attack ama qofka wadnihi oo hal mar si kadis ah u istaago oo qofka ku yimaado wadnaha inuu hal mar istaago. sidoo kale waxay yareeyaan hilibka kalluunka faa'iido uu leeyahay waxaa ka mid ah oo yareeyaa in qofkii uu ku dhaco stroke. xataa hadduu stroke qabo oo mid wax laga qaban karo u yahay, qofkii hadduu badsado uu daa'imo hilibka kalluunka wuxuu xal u heli doonaa insha Allah inuu stroke maxaa la dhahaa ka badbaado. laakiin marka horeba kalluunka oo la daa'imo waxay ka hortagtaa inuu qofka kusoo degdego ama ku dhaco stroke-guna waa waxa u naqaano faaliga ama qofka inuu maskaxdii dhiig uga furmo oo xiidadii maskaxda galayay ay ku yimaadaan dhiig bax badan uu ku yimaado ama iyada naftirkeedu ay dhiiggii soo galayo cilad uu ku noqdo oo qofkii madaxiisii iyo maskaxdii uu maxaa la dhahaa ka jirado. sidoo kale mar walbo waxay hilibka kalluunka sida soo jireenka ah qofka markii la siiyo difaaciisa ayaa kor u soo qaadmaya. vitamins badan oo aan jirkiisa hore u aqoonin ayaa maxaa la dhahaa cellska jirkiisa ay baranayaan oo sameysanayaan. marka intaas waa hordhac anigoo sheegayo farqiga labada hilib u dhaxeeyo mid walba waxaan ka sameynayaa introduction. faa'iidada uu leeyahay hilibka kalluunka haddii aan sii guda galo waxaa ka mid ah wuxuu maxaa la dhahaa joogteeyaa caafimaadka wadnaha. hilibka kalluunka wuxuu maintenance ku sameeyaa caafimaad qabka wadnaha. sidoo kale wuxuu hoos u dhigaa cadaadiska dhiigga. qofka hypertension ama high blood pressure qofka qabo haddii la siiyo hilib kalluun wuxuu ku sameynayaa hypotension oo uu soo dejinayaa blood pressure-kii aadka u sareeyay. sidoo kale hilibka kalluunka wuxuu ka caawiyaa inuu qofka maskaxdiisa ay si fiican u shaqeyso. inay si fiican maskaxda u shaqeyso ayuu qofka bini'aadamka ka caawiyaa. waa mar walbo qofka hadduu daa'imo waayo. sidoo kale wuxuu qofka bini'aadamka ka caawiyaa hilibka kalluunka in maxaa la dhahaa mar walbo jirkiisa uu soo qurxanaado oo body building ayuu u sameeyaa hilibka kalluunka oo tissue-gii qofka bini'aadamka ayuu nuurinayaa mar walba maadaama nafaqa uu qofka helayo. sidoo kale wuxuu ka caawiyaa hooyada uurka leh waxa uurku jirkeeda ku jiro ama fetuska waxa loo yaqaano maskaxdiisii
inay development ku samaysanto oo cunugii meeshaas lagu abuurayo hooyada uurkeeda lagu sameynayo in brain development loo sameeyo ayuu ka caawiyaa kalluunka ay cunayso hooyada uurka leh xilliga uurka ay leedahay hadday daa'into cunitaanka kalluunka. sidoo kale wuxuu yareeyaa khatarta ku imaan karta qofka markuu dareemayo walaac ama waxa loo yaqaano niyad jab ama depression waxa la yiraahdo. sidoo kale in qofkii uu yahay mar walba qof maxaa la dhahaa iska walaacsan markuu xaaladaas ku jiro hadduu hilib kalluun daa'imo wuxuu aad u yareeyaa depressionka ama anxiety-ga waxa la yiraahdo. sidoo kale hilib kalluunka wuxuu yareeyaa oo u fiican yahay qofka qabo diabeteska ama cudurka loo yaqaano kaadi macaanka. intaas waa faa'iidooyinka uu leeyahay hilibka kalluunka oo cunistiisa la daa'imo. daawade haddii aadan horey u cuni jirin waxaad hadda wixii ka dambeeya bilowdaa inaad isticmaasho kalluunka. haddii aan u gudagalo qaybta hilibka lo'da faa'iidada uu jirka bini'aadamka u leeyahay hilibka lo'da sidaan wada ognahay lo'da waxaa la dhaqan jiray muddo qarniyo ah. muddo badan ayaa lo'da lasoo dhaqan jiray. kumanaan sano ka hor ayaa lo'da la dhaqan jiray. waxaa la sheegaa in lo'dii ugu horreysay ee adduunka lagu dhaqdo laga dhaqan jiray xilli laga joogo 10,000 oo sano ka hor ayaa la dhaqan jiray. waxaana laga dhaqan jiray goobaha loo yaqaano bariga dhexe ama middle asia qaaradda aasiya qaybaheeda dhexe wadamada ku yaala ayaa aad looga dhaqan jiray lo'da. xoolo dhaqatadii ugu horreysay maxaa la adduunka kasoo ifbaxdana waxay ku dhaqneed ama ay ku noolaayeen qaaradda aasiya barigeeda. marka lo'da waxaa aad looga dhaqan jiray qarniyo badan ama kumanaan sano ka hor ee lasoo dhaafay. sidaa darteed waxaa halkaas ka dareemaysaa in lo'du ay yacni xoolaha la dhaqdo lafdhabarka ahayd xilligii maxaa la dhahaa adduunyadaba ay bilowga ahayd. marka lo'da waxyaabaha markii la dhaqdo laga faa'iido waxaa ka mid ah in la cuno hilibkeeda oo la qasho. faa'iidada markaa haddii aan u guda galo lo'da hilibkeeda uu leeyahay ama waxa loo yaqaano cow meat faa'iidada laga helo waxaa ka mid ah hilibka lo'da waxaa ama mar walbaba haddii la joogteeyo laga helaa ayna qani ku tahay proteins waxa loo yaqaano proteins iyo macdano kale. laakiin waxaa ka buuxo waxa loo yaqaano cholesterol iyo fat ama baruur. cholesterol ayaa ka buuxo laakiin proteins iyo macdano kale ayaa aad uga jiro. laakiin cilada ugu horeysa leedahay waxay tahay cholesterol ayaa ku jiro iyo baruur. marka sidoo kale faa'iidada hilibka lo'da laga helo waxaa ka mid ah iron taasoo noo sameyso hemoglobintana waxay muhiim u tahay yacni unugyadanu kasii samaysmaan red blood cellska unugyada cascas ee dhiigga. marka ironta ayaa laga helaa hilibka lo'da. sidoo kale lo'da waxay u fiican tahay hilibka lo'da wuxuu u fiican yahay murqaha muscle development ayuu maxaa la dhahaa u sameeyaa jirka bani'aadamka hilibka lo'da. sidoo kale hilibka lo'da waxaa laga helaa zinc waxa loo yaqaano zinc kaasoo ka caawiyo dayactirka jirka dhammaan unugyada jirka ama adipose tissue-ga meelaha baruurta ku badan tahay inuu sii qurxiyo oo qofkii nuuriyo jirkiisa ama cayiliyo ayuu ka qayb qaataa zinkiga. waxyaabo badan loo isticmaalaa sida in shubanka lagu joojiyo. laakiin hilibka lo'da waxyaabaha ugu muhiimsan oo ka helno waxaa ka mid ah zinc. sidoo kale hilibka lo'da waxaan ka helnaa vitamin B6 kaasoo lagu joojiyo lalabada iyo mataga. sidoo kale hilibka lo'da waxaan ka helnaa vitamin B12 iyo sidoo kale vitamin B6 iyo zinc maada la yiraahdo. marka vitaminska laga helana kuwaas ayaa ugu caansan. laakiin waxyaabaha ugu muhiimsan hilibka lo'da aan ka helno waxaa kow ka ah inay iron noo sameyso oo sidaasna hemoglobin oo ku sameysmo anemia meeshaas ayuu
ay ka baxaysaa ama uu kula dagaalamaa cunista hilibka lo'da. waa horena waa tan usoo sheegnay hilibka lo'da waxaa laga helaa proteinskaasoo marka jirkeena iyaga naftirkooda ka qayb qaadanaya dhismaha. intaas ayaan jeclahay inaan kusoo koobo. fadlan haddii aad youtube nagala socoto waxaan kaa codsanaynaa si naxariis leh inaad subscribe inoo saarto channelka. haddii aad barahana bulshada sida facebook iyo tiktok naga daawanaysana waxaan kaa codsanayaa dhammaan inaad nasoo follow garayso. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.